بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka koowaad waxaan alle uga mahadcelinaynaa nimcooyinka uu na siiyay oo ay ka mid tahay in dalkeena uu diyaar u yahay maanta doorashada madaxweynaha 15 May ee fooda nagu soo haysa. waxaan bogaadinayaa shaqada labada gole ama labada aqal ee baarlamaanka oo si habsami leh u daadihinaya hanaanka doorashooyinka. sida aad wada ogtihiin waxaan ku jirnaa bil ku astaysan halgan wadaniyad xornimo doon iyo dawlad dhis. 15 May waa maalintii halgamayaashii SYL ay dhidibada u aaseen xornimada oo aanu maanta ku naaloonayno. waxaana siib wanaaga in maalinta doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya lagu beegay maalinta xuska halgamayaashii SYL. waxayna taasi diraysaa fariin cad. waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed inuu si weyn ugu diyaar garoobo una xuso maalintaas maamuuska leh. walaalayaal, dalkeena maanta waxa uu u baahan yahay hoggaan aamin ah oo ilaaliya ammaanada ummadda iyo hantida qaranka, aaminsan kuna shaqeeya qarannimo oo ka fog qabyaaladda iyo qof jeclaysi, danta guud ka hormariya midda gaarka ah, oo heegan u ah howlaha qaranka, aaminsan midnimada dhuleed ee dalkeena iyo wadajirka ummadeed ee dadkeena, ilaaliya madaxbannaanida dalkeena iyo qabka dadkeena, oo ogol kaliya iskaashi ku dhisan wada shaqeyn iyo is-ixtiraam kala dhexeeya caalamka intiisa kale, xogaalah oo awood u leh joogtaynta isbedelada socda ee dalka ka hana qaaday 5 sano ee la soo dhaafay, la jira shacabka oo dareemaya danaha iyo duruufaha bulshada, daryeela danyarta iyo daljirka heeganka ku ah jiidaha hore ee difaaca qaranka, ilaaliya xuquuqda golayaasha dowladda, shaqaalaha iyo adeegayaasha qaranka. haddaba anigoo ka duulaya baahida hogaamineed ee dalkayga iyo dadkayga, tixgelinaya codsiga shacabka Soomaaliyeed, ayaan waxaan go'aansaday inaan mar kale isu sharaxo xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si aan u sii socodsiino isbedelka ka socda dalka. sidaas darteed waxaan halkaan aan ka soo jeedinayaa ama aan uga jeedinayaa laba baaq oo muhiim ah. baaqa koowaad waxaan u dirayaa xildhibaanada sharafta leh ee labada aqal, waxaana ka codsanayaa inay codkooda isiiyaan oo aan wadajir ugu guulaysano una horumarino dalkeena iyo dadkeena si aan u sii socodsiino isbedel doonka ka soo bilowday 8 Febraayo 2017. baaqa labaad waxaan u dirayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, waxaana si qadarin leh aan uga codsanayaa inay mar kale igu garab istaagaan dib u doorasho ku dhisan danta shacabka. xubin kasta oo ka mid ah baarlamaankeena waxay matashaa ku dhowaad 60,000 oo shacab ah. waxaan alle uga baryaynaa in dalkeena uu ku manaysto nabad waarta iyo nolol wanaagsan. waad mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.